Soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer qaaradda Afrika. waxa ay ku taallaa isku dhafka juqraafiyadeed ee qaar ka mid ah marinada caalamiga ah ee ugu muhiimsan dunida, iyada oo xudun u ah ganacsiga badda ee ka soo ifbaxa Bariga Dhexe iyo Aasiya. waa madal muhiim u ah isku socodka dhaqaalaha dunida, waxaana maalin kasta mara biyaha Soomaaliya tiro badan oo maraakiib ah, kuwaasi oo sida shidaal iyo shixnado kale oo ganacsi. badda Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya hadda laba maab baan ku haysanaa. bariga Soomaaliya 630,000 oo kilomitir square ka badan weeye, laakiin baddana 1 milyan oo kilomitir square wax ka badan. marka baddeena ayaa waxay ka weyn tahay dhulkeena ka weyn tahay. taas waxay keentay inay dawladdu muhiimad gaar ah siiso oo maaragtay wax wasaarad gaar loo asteeyo hawlaheeda inay maamuso. dekedaha Soomaaliya qarniyo badan ayay martigelinayeen badmaaxiyiin caalami ah, inkasta oo ay la kulmeen caqabado badan oo la xiriira amniga iyo bani'aadanimada. Soomaaliya oo hadda ku jirta marxaladda dib u kabashada nidaamka dawladnimada, waxa ay sameynaysaa horumar weyn oo ku aadan yoolalka horumarinta joogtada ah SDGs iyo ajendaha 2030 ee caalamka u degsan. si loo xaqiijiyo yoolkan, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya waxa ay dib u dhistay maamulka badda Soomaaliya SMA bishii Diseembar 2018 si loo sii ambaqaado siyaasadda lagama maarmaanka u ah iyo qaab dhismeedka sharciyeynta oo fursad badan u abuuri doonta suuqyada maraakiibta ee Soomaaliya. 9 Maarso 2020 dadaal qaatay sanado badan oo ku saabsan horumarinta iyo turjumidda xeerka dib loogu soo celinayo xeerka badda ee Soomaaliya ayaa hirgalay, iyadoo wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka baddu ay aqbashay xeerka maraakiibta Soomaaliya. xeerkan oo markii ugu dambeysay ee wax laga bedelay ay ahayd 1988 ayaa ah tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday, waxaana looga gol lahaa in lagu hubiyo u hoggaansanaanta qaab dhismeedyada badaha caalamiga ah ee u dambeeyay, sida heshiiska qaramada midoobay ee sharciga badaha UNCLOS. marka laga tago dib u howlgelinta xeerarka muhiimka ah, Soomaaliya waxay dadaal xoogan ku bixisay ka hortagga xaalufinta ay maraakiibta shisheeye ku hayaan baddeenna, kuwaasi oo si aan sharci ahayn uga kalluumaysta xeebaha dalkeenna, halka qaarkoodna ku shubaan kiimiko iyo waxyaabo khatar geliya noolaha ku jira baddeenna. wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa hirgelisay waax u gaar ah la socodka maraakiibta sida aan sharciga ahayn uga jilaabta baddeenna, iyadoo la isticmaalaya agab casri ah oo suurto gelinaya in la ogaado rukhsadaha ay haystaan iyo shirkadaha ay u diiwaan gashan yihiin maraakiibta ku soo xadgudba baddeenna. systemka marka wuxuu u shaqeeyaa laba qaab u shaqeeyaa. qaab la yiraahdo vessels monitoring system waa la socodka markab kalluumaysi habka loola socon lahaa. halkan waxaan ka tusi karaa kale waa wasaaraddii, halkaana waa markabkii. say isula soconayaan marka waxa weeye through satellite isula soconayaan, laakiin qalabka wasaaradda yaala transmitteradii halkan kasoo gudbin lahaa markab kasta oo ruqsad la siiyey uu ku khasban yahay in uu ku rakibo markabkiisa. wuxuu kaloo waajib ku ah inuu daaran yahay, had iyo jeer daaran yahay, oo 2 saac oo kasta iyo 1 saac oo kastaba uu soo diro signalka meesha uu joogo oo lala socdo. idan dhaqdhaqaaqiisa oo dhan waa lagala socdaa. sidoo kaleeto marka uu baddeena soo gelayo permission buu weydiistaa, marka uu ka baxayna permission ogolaansho weydiisanaya. waxaa kaloo jira monitoring ka aan ku sheegay, waxaa kaloo jira system AIS la yiraahdo oo isla sidii u shaqeeya, laakiin waxa iska leh maritime ya iska leh oo wax kasta oo badda marayo sharciga caalamiga ah law of the sea ya wuxuu ku khasbayaa in ay systemkaas ay ku xiraan maraakiibta si loola socdo dhaqdhaqaaqooda. inkasta oo uusan jirin ciidan bad oo leh awood uu kaga jawaabo xadgudub kasta oo ka dhaca baddeenna, haddana waxaa jira tallaabooyin u furan Soomaaliya si tilaabo sharci ah looga qaado kuwa ku soo xadgudba xuduudbadeedkeenna. wasaaradda waxaa u furan iyadoo ka faa'iideysanaysa xubinimada aan ka nahay hay-adaha gobolka sida Indian Ocean Commission iyo Indian Ocean Tuna Commission labadaba. halkaas oo ay jiraan
xeerar iyo resolutions lagu dhaqmo ay jiraan oo la ilaaliyo maadaama marka wadamada kalluumaysiga sharci darro wadamada oo ka imaanayo ay hay-adahaas ay ka tirsan yihiin waxaa wasaaradda u suura gashay inay dacweeyaan oo ay ka gudbiyaan hadda ka hor ay ka gudbiyeen markab kalluumaysi sharci darro ku sameynaya waddanka kaasoo lagu qabtay markuu dekadihii kale uu tagay lagu qabtay kalluumaysiga sharci darrada ah oo si daran weli uga socda xeebaha dalkeenna burcadbadeedda iyo xadgudubyada dowladaha shisheeye ayaa ah caqabadaha xilligan ay wajahayso baddeenna si taasi looga gudbana Soomaaliya waxa ay ku qasban tahay inay hirgeliso ciidanka badda sida uu qabo sareeyo gaas daahir aadan cilmi indhaqarshe oo horay u soo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya badda Soomaaliya dagaalkeedu weligiis uu jiri doona khayraad far badan baa ku duugan Soomaaliya waxa loo baahan yahay inay u tabaabasho badda Soomaaliya si u daafacan lahayd waxa lagu daafici karaan inay helo ciidan bad oo awood u leh raadar leh maraakiib leh diyaarado leh oo ilaaliya baddaas weyn oo noo ilaaliya maxaa yeelay baahida meesha uga bixi lahayn dhibaatada faqriga shacabkeena haysata waa baddaas Indian Ocean waa in dawladda Soomaaliya ay u tafaxaylataa inay daafacno baddaas iyadoo ay jiraan guulahaas muuqda ee Soomaaliya ka xaqiijisay dhamaystirka xeerarka muhiimka u ah maridda badaha dhiirigelinta kalluumaysatada Soomaaliyeed iyo sameynta suuqyo caalami ah oo kalluumaysatada dalkeena u saamaxaya inay dunida gaarsiiyaan ganacsigooda khayraadka faraha badan ee dhex ceegaaga badaheena